macalin muuse waxaan ku riyooday walaashay oo la qalaayo anna aan ku dul ooynaayo kuwa qalayana waa aabahay iyo qofka xiga wuxuu leeyahay assalaamu calaykum macalin muuse waxaan ku riyooday ilkahayga oo aad u cadcad oo weliba iftiin nuur ka soo baxayo maasha allah waayahay assalaamu calaykum shiiqow walaalkii ayaa wuxuu ku riyooday aabe iyo hooyo oo dhinteen oo hooyo ay gacmaha ka xiran tahay aabana uu leeyahay war waa nala haystaa ee naga bixi meeshaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu tii macalin muuse qaybta youtube channelkeena horta marka ugu horeyso qof walba meesha uu joogo ayaan ka salaamayaa waxaan idin rajeynayaa inaa caafimaad qabtaan waan ku mahadsantihiin muuqaalkan muuqaalkii ka horreeyey inta badan waxaad soo qorteen hambalyo 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 waa idinkaga mahad celinayaa hambalyadaas waana idinka qabaa hambalyada insha allah maanta waa muuqaal kale ani waa iska mashquul badanahay waxaa waaye 6 beri kadib hal muuqaal isaga soo tuuraya meeshaan maanta waa muuqaal kale muuqaalkeena maanta waxaan kaga jawaabi doonaa dhowr su'aal insha allah haddii ilaah yiraahdo xaqiiqatan markaan idin imaanayo oo aan halkan soo fariisanayo xataa ma soo diyaarinin su'aalaha la isoo weydiinayo idinkoo hadda anoo inta fadhiyo aan raba inaan hortiina ku akriyo aan gafgafo aan saxo qoraalkiina ha qaldamo ha fiicnaado halkaana raba inaan ku akriyo sababtoo ilaahay waqtigaa noo barakeeye waqtigaaga haddii uu ciriiri galo waxa waaye moogtahay waa wareer waqtiga iyo maalka iyo awlaadaba waxaa lagu ducaystaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu noo barakeeyo waryaa idinku daalinine ha hilmaamina shargaranti iyo subscribe-ka ha hilmaamina insha allahu tacaala sidoo kale gamalka inaa furtaan ha hilmaamina hambalyo macalin muuse assalaamu calaykum congratulation happy 450k maasha allah muuqaalo qurux badan arkoyaa assalaamu calaykum macalin muuse allah ku barakeeye waxaa ku riyooday qofaa jeclahay kow oo aan kala tagnay haye oo isoo salaamayo ani iyo caruurta kadib guursaday markaan maqlay zaa'id u ooyey ninkiiya guursanaya way maqashay kadib zaa'idan u ooyey leedahay roob zaa'idaa da'ay haye biyaha roobkaa ku dhex oynayaa roobka igu korda'ayey aniga zaa'idan u jeclahay kheyr baan rajaynayaa iisoo fasir macalin oo kheyr allah ku siiya ninkan waa jeceshahay weli kala tegiina marka laga soo tago weli waxaa kugu dambeeyo jaceylaa kugu dambeeyo laanna qof walba niyadiisa sida ay jeceshahay allah u yeelman dhaho niyadaadasa jeceshaha waa niyadaada waxay jeceshahay waxaa waaye ninkan inuu kuu soo noqdo oo ninkaagii hore iyo sidii hore iyo si ka fiican aa ku wada dhaqantaan runta markaan kuu sheego anigoonan riyadan aan tacbiir iyo tafsiir kale aan u samayn ayaa waxay ka tarjumaysaa xawla niyatig niyadaada hareeraheeday ka tarjumaysaa in ay fahantaan rajaynayaa laakiin sideed kale riya tacbiir ku dhacayso taasay tilmaamaysaa ishaaradaasay tilmaamaysaa maan xadiis nafsi allah waayahay qof kale congratulation aan leeyahay maryam waxaan leeyahay assalaamu calaykum sheekhow muddo aad u dheer adiga 8 sano camal ah ayaa waxaa jirtay in aan ku riyoodo riyadan waa anigoo meel dheer saaran waan iska soo tuuray haddana waan fuulay waan isu soo tuuray wallaahi sheekhow marka isoo tuurayo cabsi iyo rafaad ayaan riyadan ku dhex dareemayaa sheekh iisoo fasir allah ku barakeeye riyadan artu ilaahay wuxuu noo sheegay cadow inaan leenahay cadowgeenan uu yahay shaydaan ina shaydaana lakum caduwan fattakhiduu caduwan dhib walba oo riyada lagugu geystaa wax kuu geysan artu waa shaydaan taas artu waa ina artu maankaaga ku hay niyadaada ku hay dhibaato walba oo riyada kugu soo gaarto cidda kuu geysanayso inay tahay shaydaan dhib ilaahay kaagama imaanayo idan marka shaydaanka ayaa wuxuu sameynayaa meel qaru kaa soo tuuraya inaad dhimatid uu rabaa noloshuu kuu diidan yahay nolosha uu kuu diidan yahay wuxuu rabaa inuu ku rafaadiyo wuxuu rabaa inuu ku murjiyo wuxuu rabaa inuu ku tiir ilaahay ma dhihino inamaa dalikum shaydaan yukhawifu awliyaa'ahu falaa takhaafuuhum shaydaanka haddaad ka cabsatid ilaahay amarkiisa khilaaftay kaasi waa shaydaan
wuxuu kugu cabsi gelinayaa awliyadiisa marba si buu meel buu kaaga imaanayaa haddaad ka cabsato ilaahay ayaad amarkiisa khilaaftay ilaahay maxaad ku khilaaftay muxuu yidhi falaa takhaafuuhum ha ka cabsanin marka haddii waxaasoo kale aad ku riyooto adoo meel ka soo dhacayo soo faniinaayo lagu cunaayo si xun u dhimanaayo cabsigelin shaydaan waaye falaa takhaafuuhum wakhaafuuni in kuntum mu'miniin meelaha dhaadheer oo laga soo dhacayo cadowgaaga cadow daran ah shaydaankana waaye iska ilaali marka salaaduu kuu diidan yahay cibaaduu kuu diidan yahay wax walba wanaagoo dhan uu kuu diidan yahay wuxuu rabaa inuu dhulka kula galo oo uu kula simuu rabaa adigoonan wax ajira ilahay agtiisa ku oolinuu rabaa inaad dhimato saasuu rabaa shaydaanka marka arrinta noocaas oo kale hadad ku rata ha u aabayeelin kac weyse qaado 2 rakac tuko insha allah waayahay qof kale wuxuu leeyahay macalin muuse waxaan ku riyooday walaashay oo la qalaayo anna aan ku dul ooynaayo kuwa qalaayana waa aabahay iyo adeerkii qalitaankii qalitaan ahaa oo sidii neefka loo qalaya camal maa ka wadaa mise qalitaan waxaa ka wadaa qalitaankii operationka loo marayo dhakhaatiirta qofka in qaliin lagu sameeyo waa kala qaadaynaa marka qalitaanka caadiga ah haddii ay tahay oo ay bireynayaan sidii xayawaanka camal ay u bireynayaan gabadhaas iyada aabbaha iyo walaalka bixinayo waa la gursanaa si fiican dhigaysaa haddii ay tahay bireenta caadiga ah oo la bireenayo qofka qoorta ay ka bireynayaan way bixinayaan way u guurinayaan ninay u guurinayaan waa la gursanayaan haddii ay tahay qaliinkii oo dhakhaatiirta qaliinka qofka uu marayay ay tahayne sidaasoo kale ay u qalayaan haddii ay tahayne caafimaad waaye gabadhan haddii ay xanuunsan tahay aabba iyo wiilka qur-aan ay saarayaan sababtooda ayayna ku caafimaadaysaa mii fahanti macnaha waa kala qaadaynaa qaliinka dhakhtarka ahna waxaa weeyaan caafimaad qaliinka qoorta qofka laga goynayana waa guur oo way bixinayaan way ku darayaan inay fahantaan rajaynaya insha allahu tacaala waqtigoo gaaban ogeeda waayahay assalaamu calaykum shiikow walaalkii ayaa wuxuu ku riyooday aabbe iyo hooyo oo dhinteen oo hooyo ay gacmaha ka xiran tahay aabbana uu leeyahay war waa nala haystaa ee naga bixi meeshaan riyadan waxaa umalaynaa hadda kahor inaan soo fasiray muuqaalkii ka horreeyay inaan kusoo fasira umalaynaa mana hubo ma aqaan almuhim si kasta oo ay tahay hooyo iyo aabba haddii ay horey ee u dhinteen oo iyagoo xabsi ku jiro xiran lagu riyooday ducay u baahan yihiin u duceeya hadday hooyo iyo aabba ay nool yihiin laakiin riyale ay tahay dhimashadaana ay dhinteen riyo ay tahay iyo xabsigan ay ku jiraanna ay tahay hooyo iyo aabba waxay u baahan yihiin kaalmay u baahan yihiin fi dunya ay kaalmo u baahan yihiin awlaadoodaa tihiin carruurtoodaa tihiin oo waxay idinkaga baahan yihiin caawinaaday idinkaga baahan yihiin oo caawiya labada marbo qofka marka uu xiran yahay isagoo xabsi ku jiro ama isagoo xirxiran oo aan dhaqdhaqaaqi karin haddii uu ku riyoodo shaydaanuu u xiran yahay walciyaadu billaah shaydaanuu u xiran yahay oo shaydaana sidii uu doono meeshuu doono u jeedinayo sidii uu doonana ka yeelanayo ma fahmaysiin rabti shaydaaniyaa la dhahaa sixiruu noqon karaa ogow ilay waxay noqon kartaa sixir shaydaaniyuu noqon karaa sixirka waxaa ka mid ah sixiru rabtiyaa ka mid ah sixirada sixir rabtiyaa ka mid ah qofkan qof in laga xiro aabbii hooy in la kala xiro midkood mid in la nacsiiyo oo laga xiro xaggiisa dhanba la nacsiiyo macquul aa dhici karto marka arrintaas iyada ah hadday nool yihiinna qur-aan saaray u baahan yihiin haddii ay dhinteenna ducay u baahan yihiin qofka xiga wuxuu leeyahay assalaamu calaykum macalin muuse waxaan ku riyooday ilkahayga oo aad u cadcad oo weliba iftiin nuur ka soo baxaya maasha allah ilkaha qaraabo waaye ilkaheenna waxay ka tarjumayaan qaraabadeenna kuwa hoose waxay ka tarjumayaan waalidiinteenna kuwa hooyo iyo habaryar iyo eeddo iyo yani kuwa mataqaana hablaha ah ragga oo dhanna korkaanay sifan yihiin dhaan aabbaha awowga walaalka adeerka abtiga korwa haddii ilkahaaga oo cadad aad ku riyooto macnaheedu waxay ka tarjumaysaa in aad qaraabada xidhiidsid in qaraabadu aan khalal iyo hadal iyo xumaato aanay dhex oolin carafta iyo udgoonka kasoo baxaya aad leedahay iyo nuurka kasoo baxayana waxay tilmaamaysaa in mataqaana ay hanuunsan yihiin maxaa yeelay nuurku waa hanuun inaad adiga dhanba aad kasoo jeedid qoys oo ilaahay subxaana watacaala ka cabsanayo qoys hanuunsan qoys salaada dukado nuurku waa salaada nuurku waa hanuunka iftiinku waa hanuunka iyo salaada iyo cibaadada marka qoys fiican aa ka dhalatay waa ku hambalyanaya wiil miya mas gabar waaye maariye faarax miya maariye faarax aadan kugu hambalyanaya qoys fiican oo waxaa kasoo jeeda ahlu taqwa insha allahu tacaala
ugu dambeyn waxaan kusoo gogbeynana assalaamu calaykum sheekhu hadda ka hor waxaan ku riyooday aniga oo saaxiibkayga oo masjid galayno masjidka dhexdiisana adigoo cashir bixinayo oo fadhiyo ayaan arkay canug yar masjidka joogo ayaan macsalaameeyey markaasna waan baxay khayr allah ku sii yeerayadan waxaa laga yaabaa inaad aad u dhegaysatid barnaamijyadeeda iyo aniga tiktokeyga inaad aad ula socotid aa laga yaabaa aad u dadaawato aad u firfirsato macquula adiga iyo saaxiibkana aa isla daawataan marka meel walba oo khayr lagu baahinayo oo dadku ay isugu yimaadaanna jaamica lahaa meelay dadku ay ku ururaan marka jaamic masaajidkuna waa jaamic waay marka saas daraadeeda marka inta badan haddii qofkaani aad saaxiib le aad tihiin weli eedan isgursanin insha allah wanaagaad isku gursanaysaan wanaagaadna ku wada joogaysaan insha allahu tacaala biidni ilbaari jala wacalaa waxaana ku rajaynayaa inaad wanaag isku guursataan wanaagna aad ku wada joogtaan ilaa yowmi diinna aad isku ahaataan insha allahu tacaala nin iyo xaaskiisa intaasaan ka gaarsiiyey maanta inta kalena insha allahu tacaala aaduu maanta u badan yahay commentiga laakiin ma ka wada gaari karo qoraaladana iisoo gaagaabiya bliis codsiyaan wataa qoraaladan dhaadheer maan muhiimadda kasoo qabta bes commentigan dheer ee saddexda sadar ka kooban maya joojiya macal muuse waxaan ku leeyahay waxaas maxay ka tarjumaysaa macal muuse saas bes iisoo gaagaabiya khayr allah idin siiyo baaraka allahu fiikum aadaa umahadsantihiin intaynu muuqaalkan muuqaalka xiga aynu ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadey